munaasabad ballaaran oo jaamacadda Golis ee magaalada Burco ay ku soo bandhigaysay kulliyado cusub oo ay bilaabayso sanadka 2015 iyo sidoo kale waxbarashada sare ee masterka ay habeenkii xalay ku qabatay Hotel Dero ee magaalada Burco. munaasabadan waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis Dr. Saciid Axmed Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Golis ee gobolka Togdheer iyo saraakiil sare oo ka socda jaamacadaha ay jaamacado caalami oo ay xiriir leeyihiin jaamacadan Golis. Dr. Saciid Axmed Xasan gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis ayaa waxa uu ku amaanay jaamacadda Golis guud ahaanba madaxdeedu dadaalka ay ugu jiraan inay horumariyaan waxbarashada dalka. gudoomiyaha jaamacadda Golis ee gobolka Togdheer Cabdixakiin Maxamed Cabdilaahi ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxbarashadaasi cusub ee ay bilaabayaan sanadka 2015. waxbarashadan ayaa waxa qayb ka ah waxbarashada sare ee masterka iyo sidoo kale kulliyado ku cusub guud ahaanba gobolka Togdheer sida kulliyada saxaafadda. qoladii ugu horeysay master program way dhamaysay jaamacado kala duwan ayaa gacan la siiyay oo xiriir la sameeyay ay Jomo Kenyatta ka mid tahay oo ardadii ugu horeysay ay ka baxeen Jomo Kenyatta iyagoo jooga Hargeysa in jaamacado kale master public health uu ka socdo. waxaa jira engineering management oo lagu guuleystay oo isna soconaya. waxaa soconaya development studies MBA. marka jaamacaddu waxay ku tallaabsatay in local master program ardaygu uu qaato programkii masterka ee Golis oo isna hadda furmay oo numberka ugu badan aad hadda dhigataa Golis Hargeysa ay dhigtaan. jaamacadda Golis ay noqoto jaamacadda ugu wanaagsan Afrikada Bari kana ilaahay baa weydiisay waan helaynaa Burco waxa lagu gaarana anigu ma oranayo kitaab ay ku qorantay email bay ku qorantay laakiin sida looga soo sida ilaahay ugu baranay ilaahay uu barakeeyo Burcana saasaan soo doonanay tii labaad inaan ku qaadano. xubno ka socday jaamacadda Golis oo ay ka mid ahaayeen macallimiin ayaa iyaguna munaasabadan ka hadlay isla markaana tilmaamay inay u hagar bixi doonaan waxbarashadaasi. sarkaal sare oo ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo lagu magacaabo Jaamac Cabdilaahi Cali iyo Sheekh Cali oo ka tirsan madaxda sare ee shirkadda Talisom ayaa iyaguna munaasabadan ka hadlay. guud ahaanba jaamacadda Golis ee gobolka Togdheer ayaa muddooyinka ugu dambeeyay ka howlanayd sida ay u horumarin lahayd guud ahaanba waxbarashada kala duwan ee loogu talagalay ardayda dugsiyada sare ee dalka ka qalin jabisa. waa Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.